Shaqada culus marka aad ku dhex jirto waxaad u baahan tahay inaad si adag diiradda u saarto oo mashquul kale iska ilaaliso. Balse mararka qaar adigoo meel wanaagsan ay wax kasta kuu marayaan, waxaa kaa soo dhexgelaya taleefan ama qof iska socda oo sheekeynaya. Halkaas waxaa kulmaya wixii diiradda aad saaraysay, taasina waa jahwareer. Waxaa la ogaaday in qofka haddii ay mar wax ka mashquuliyaan shaqo uu hayay, waxaa ku sii xiga in emailka la eego, Facebook la fiiriyo, iyo arrimo kale, kuwaas oo keenaya inay lumiyaan wixii aad diiradda saaraysay iyo wanaaggii aad haysay. Baaritaan sida lagu ogaaday, mashquul yar kadib haddii shaqadaada aad dib u bilowdo, waxaad mar kale u baahnaanaysaa 10 ilaa 15 daqiiqo si aad dib ula qabsato shaqadaas. Haddaba arrin la yaab leh ma ahan in dareenka shaqo ee howlaha u baahan yihiin inay adag tahay sidii loogu guulaysan lahaa. Mar kasta wax unbaa kaa soo dhexgelaya oo ku jahwareerinaya. Balse haddii aad raacdo 3dan arrimood, waxaa suuragal ah inaad ku guulaysato. Kow, samayso waqti aad iska xirayso wax kasta oo ku mashquulin kara. Ugu yaraan waqtigaas ha noqdo 1 saacadood ama xitaa 20 daqiiqo. Yeelo waqti aad ku adkaysato joojinta wax kasta oo kaa soo dhexgeli kara shaqada. Taleefanka iska qari, hana eegin Facebook ama Twitter. Waa in maskaxdaada ay taas ka soo go'do oo isku ciqaabtaa haddii ay naftaadu aqbali weydo. 2, garo xilliga iyo meesha kugu wanaagsan ee aad shaqo ku qaban karto. Inta badan dadka waxay shaqada diiradda saari karaan 6 saacadood oo keli ah. Haddaba aad ayay u adag tahay in waqtiga aad u adeegsato si caqliyeysan. Marka hore naftaada baro iyo meesha kugu wanaagsan. Sidoo kale inta badan dadka waxaa u fiican subaxii ama habeenkii xilli dambe. Taas micnaheedu wuxuu yahay inaynan shaqo wax soo saar leh qaban karin inta maalinta lagu guda jiro. Qodobka 3, naftaada ka celi inay sida carruurta oo kale u dhaqanto. Waxaan halkaas ula jeedaa ismashquulinta iyo dib u soo dhigidda. Way adag tahay in arrintaas aad ogaato, balse marka aad si dhow isu eegto, waxaa kuu soo baxaysa in maalayacni uu waqtiga kaaga lumayo. Marka aan dib u dhigayno shaqo inaad sugaysa, wuxuu micnaheedu yahay arrin ama wax baan isku mashquulinaynaa. Taasina waa isjahwareerin. Sida ugu degdegsan ee aad dabeecadaas isaga beddeli karto waa inaad is ogaato oo aad naftaada ka warhayso. Kadibna waa inaad bilowdo shaqooyinka muhiimka ku ah oo aadna ku qiimeyso sida aad dareemayso.